Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta qaaliga meel walbo dunida ka joogta waxaan idinku salaanta islaamka. Salaanka sida arkaysaan maanta waxaan qado u sameeyay guriga pizza. Waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago sidaan pizzada u sameeyo. Marka waa kaasa waad aragtaan markii aan dhameeyay waa kaasa saxankii ayay ku jirtaa. Weli maana laga bixinin way kulushahay masha Allah tabaarakallah. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan. Please waxaan idinka codsanayaa haddaad nagu cusubtiin inaad subscribe-ka ii saartaan. Haddaad ka heshaan videoga commentiga waa xaqiina. Waadna ku mahadsantihiin sidaad iila joogtaan. oona aad ii share gareysaan ayaan idinka codsanayaa. Haddana sidaad arkaysaanbo waxaan rabaa inaan isku dardaro. meesha waxaan ku haystaa bakeeri caano qandac yar ah. baaquliga ayaan ku shubtay waad arkaysaan waxaan ku darsanayaa hal qaando iyo half oo sokor ah iyo wax qaando oo khamiir ah. intii ayaan si fiican iskugu walaaqayaa kadib waa dhigayaa ilaa 5 minute camal. 5 minute markii ay isdhaho way taala ay khamiiraysaa insha Allah. markaas ayaan ku qasan doonaa burkii. haddana sidaad arkaysaan meesha waxaan kusoo diyaarsaday baaquli waxaan kusoo shubtay 2 bakeeri oo bur ah. cusbo yar ayaan ku daray iyo waxaan ku darayaa wax yar oo saliid ah. kadibna waxaan ku qasan doonaa sokortii caanihii iyo khamiirkii diyaarsanaa wuu khamiiray masha Allah sidii la rabay ayuu khamiiray. haddana waa kaasa waan ku daray waad aragtaan waan qasayaa si fiican ayaan isku dhexgelinayaa si fiican ayaan u cajiimi doonaa insha Allah. waad aragtaan waan soo cajiimay haddana plastikan ayaan soo diyaarsaday saliid yar ayaan marinayaa kadibna waad aragtaan sidii dharkii ayaan u dhaqayaa. waxaan rabaa si fiican inuu isku dhexgalo si uu hadhowna pizzada ay si qurux badan iigu noqoto ee saaid iigu khamiirto waxba kuskusi wax siga yeelan ayaan rabaa. si wanaagsan ayaan u qasayaa waad aragtaan masha Allah tabaarakallah. waa diyaar hadda waxaan ku ridayaa baaquliga. waxaan sameynayaa dabool ayaan uga dhigayaa bacdan aan haysto. kadibna waxaan sugeynaa intuu ka soo khamiiri doonto insha Allah. waxaan sii qabsan doonaa waxaan sii karsan doonaa digaagii ama dooradii ayaan sii hagaajin doonaa. sida arkaysaan meesha waxaan ku haystaa xabad basal gaduud ah. basasha gaduudan ayaan rabaa inaan jarjaro. kadib waxaan ku karin doonaa digaaga. waxaan haystaa 2 xabo digaaga oo shafka doorada ah. masha Allah waan yaryareeyay waad aragtaan si fiican ayaad ugu jeedaan sida u yaryareynayo. asxaabteeda qaaliga waa kaasa sidaas ayaan pizzada u sameeyaa markii aan pizza karsanayo. basashii waan jarjaray haddana waxaan ku shubanayaa saxankaas yarka ah ayaan ku gedinayaa. haddana waxaan jarjarayaa basasha cadeed warwareeg ayaan u jarjarayaa. waxaana sameyn doonaa pizzada markii aan fidiyo ayaan kor ugu dari doonaa basashan iyo barbaroonigan insha Allah. meel yar ayay ka bugtay waan ka jaray. sida arkaysaan barbaroonigina warwareeg ayaan u jarayaa. si fiican ayaad ugu jeedaan ayaan rajeynayaa. warwareegaas ayaan u jaranaysaa kadibna waa diyaar masha Allah tabaarakallah. hadda markii aan jarjartay ayaa meeshan waxaa ii yaalo digaagii oo qal iigu dhex jiro. mar walbana digaaga aniga qalka ayaan ku isticmaalaa. digaaga ayaan waxaan u jarjarayaa si yaroo adiga aan waaweyneyn aan yaryareyn iska normal waan soo yaryareynayaa waa aragtaan masha Allah tabaarakallah. markaan u yaryareeyo kadib ayaan isticmaaleynaa wixii aan ku isticmaali lahayn. waad aragtaan waa jarjaray baaquliga ayaan ku riday xabadii koowaad. haddana waxaan jarjaraynaa xabadii labaad. si fiican ayaad u aragtaan sidaas ayaan u yaryareey doonaa. pizzadani adiga waxaan rabaa inaan 2 saxan ku kala duwo hadduu Ilaahay yiraahdo. mid ayaan u isticmaali doonaa digaaga mida kaleetana yaanyada iyo qudaar yar iyo waxaan u isticmaali doonaa
kaasada oo kaliya. Marka waa kaasa waan soo dhameeyay digaaga meesha ay ugu digaagsan tahay qal ayaa ku dhex jiro qalka cad ayaa mar walba uu ku dhaqaa digaaga aniga. Waad aragtaan waxaan kusoo shubay birti daawada dabka ayaan saartay waan ku soo shubtay. Haddana waxaan sameynayaa dabool ayaan saarayaa digaaga waxaan jeclahay kaligiis inuu iga karo marka horeeto anoona waxba ku darin. Sida arkaysaan dabka markii aan saaray biyo badan ayay dhali doontaa. Waad aragtaan biyo badan ayay dhashay kadib markii ay biyahaas gursadaan ayaan waxyaabihii aan u isticmaali lahayd u isticmaali doonaa. Ani digaaga ayadoo ceeriina waxba kuma darsado. Waxaan arkayaa inay si kale ila ureyso. Marka waa kaasa biyihii way soo dhamaanayaan wayba kaasa waa dhamaanaya bahash digaaga waad aragtaan hoos wax yar gaduuday soo noqotay. Haddana waxaan ku darsanayaa wax yar saliid ah waxaad haysatid ayaa ku darsanaysaa. Waxaan kaloo ku daray basashii aan soo yaryareeyay waad aragtaan. Si fiican ayaad ugu jeedaan ayaan rajeynaa asxaabteyda qaaliga insha Allah waxaan rajeynaa inaad ka heshaan sidaan waxa u sameynayo. Waa kaasa markii xoogaa isku daboolay haddana waxaan ku darayaa 4 xabo tuun oo aan ku soo tumtay. Kashimoyga ayaan isticmaalaa mar walba tuun isticmaalaya aniga. Kashimoyga ayaan ku soo garaacay waa kaas sida arkaysaanba. Haddana waxaan ku darayaa xawaajiyadii oo waa kaasa maraq digaag, filfil, haruud iyo xawaajiga qaaska u digaaga iyo cusbo. Haddana waxaan ku darayaa waa qalka madow soya way dhadhan ayay u yeelaysaa masha Allah qad macaan ayay ka dhigtaa waxyaabaha markii lagu darsado. Masha Allah sidaas ayaa isku dhex galinayaa waad arkaysaan si fiican ayaad ugu jeedaan. Haddana waxaan ku darayaa wax yar oo biyo ah si ay si fiican iskugu karto. Carafta ka soo baxaysa mamaleyn kartiin wallahi masha Allah tabarakallah. Waad aragtaan haddana daboolka ayaan saarayaa dabka 3 ayaan uga dhigay laakiin waan ka dami doonaa wax yar kadib insha Allah waa diyaar bahasha bes waa wax kale uma baahno. Haddana meesha waxa ku haystaa 2 saxan subagaas ayaan marinayaa. Cajiinka waa kaasa asagiyo soo khamiiray biisadii burkii aan ka reebay si fiican ayuu khamiiray wallahi masha Allah. Waad aragtaan haddana waxaan sameynayaa balaastiki ayaan soo marsaday saliid yar aan ku buufiyay waad arkaysaan burkina waa kaasa cajiinkii sidaas ayaan u sameeyay 2 xabo ayaan ka kala dhigayaa waan kuusayaa kadibna wax yar ayaan fidinayaa kadibna mid walba saxanka ayaan gelin doonaa insha Allah sidaas ayaan u fidinayaa xoogaa yar. Markii aan sidaas u fidiyo oo isdhaho markaan way wada siman tahay meel ay ka weyn tahay ma jirto markaas ayaan saxanka gelin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Mar walbana idinka Ilaahay lagama weyno isla daqiiqad wixii doona ma naqaano. Marka alxamdulillah hadii waa kalaanka Ilaahay afka lagu haayo waa muhiim weyna fiicanta. Waad aragtaan hadda sidaas markii aan sameeyay saxankana waxaan sameynaa inta dhiman farahayga ayaan ku balbalaarinayaa aan ku siskinayaa si aan meelaha geesaha u gaarsiiyo. Masha Allah tabarakallah waa kaasa si fiican ayay noqotay cajiin ma aha waa insha Allah waxaan rajeynaa inay soft masha Allah noqoto. Waad aragtaan si fiican haddana xabadii kale sidaas u fidinayaa. Marka isla sidii ayaan yeeli doonaa ayadana markaas sameey waa kaasa saxanka haddana sidaa kale u geliyay haddana sidii oo kaleeto waa kaasa geesaha u gargaarsiinayaa. Sidaas markaan u gargaarsiyo kadib ayaan waxay diyaarsanaa qudaarteedii chickenkeygii cheesekeygii yaanyadii wixii dhan ayaan ku shuban doonaa. Geesaha saas u la sisimay saxanka waxaan rabaa inuu ila simo. Waa kaasa waan soo mariyay xabadii koowaad ayaan yaanyada ku shubay sidaas ayaan u marmarinayaa. Masha Allah markii aan ku dhameeyane chickenkii ayaan kor ugu dari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waad aragtaan waan ku soo dhameeyay haddana dooradii aan soo kariyay ama digaagii aan soo kariyay ayaan kor aga shushubayaa waa aragtaan. 2 xabo dhanba waxaan isticmaali doonaa
way iska yaraataaba marka digaaga la kariyo waa iska taqaanin. Waa kaasaa waan ku dhameeyey maasha Allah. Haddana waxaan saarayaa waa barbaroonigii iyo basashii ayaan kor ugu qurxinayaa si ay maasha Allah u noqoto. Haddana waxaan ku darayaa markii aan saas u dhameeyo jiiskii ayaan kor ka saari doonaa. Maasha Allah waa kaasaa baaquli ayaan ku haystaa jiiskii ayaan saas ugu shushubayaa. Meelaha dhan ayaan gaarsiinayaa si ay biitsadana mar walba waxay fiican tahay inuu ku badan yahay. Usti ayaan dhahnaa wadanka aan joogno anaga, laakiin waa jiis ama farmaajo. Marka sidaas ayaa ugu shushubaysaa biitsadana aad markii loogu badiyo halkay farmaajada ama jiiska aad u macdahay. Saxankii kale ayaa soo qaatay waxaa rabaa fargeetada ayaa rabaa inaan saas ku dhaho. Waa iska inaan fargeetada saas ugu duduleeliyo ayaa iska jeclaystay. Marka waa kaas sidaas ayaan u duduleelinayaa aad arkaysaan. Waa kugu sii qurux badnaanaysaa uun. Sidaas ayaan u duduleelinayaa kadibna yaanyada ayaan marinayaa. Mar walbana biitsada waxay fiican tahay inay cajiin kaana noqonin, ayna kaa burburanin, ayna kaa fiditaankan uusan kaaga badanin oo kaa adkaanin, normal inay ahaato. Marka waa kaas yaanyadii waa marshay. Haddana waxaan sameynayaa wax yar oo barbarooni iyo basal ayaan kor ka saarayaa, kama badinaayo sidaa arkaysaanba. Ciyaalka ma jeclo ayadoo la dhahay barbarooniga xataa saarin, hooyo naga badaa aan dhahay hooyo waa idin fiican yahay waan saarayaa. Marka maba jeclaaba oo ilmaha qudaarta, laakiin way u fiican tahay inay cunaan. Haddana waxaan sameynayaa jiiskii ayaan kor ugu dardarayaa. Sidaa arkaysaanba jiiskii ayaan ku shushubayaa waad aragtaan. Sidaas ayaan ku dhameeyey maasha Allah tabaarakallah. Waad aragtaan. Haddana labadii saxanba waa kaasaa ayadoo aan wada sameeyey maasha Allah. Ilaahu Rabbi Raxmaan oo caafimaad aan ku cunana sii. Intaa haysanina Allah u siiyaadsho, Ilaahu anaga noo siyaadi, inta haysatana Allah siiyo. Waa kaasaa hadda waan soo dhameeyey way soo baxday. Biitsadii waa diyaar. Labadii saxanba waa aragtaan siday u qurux badan tahay maasha Allah tabaarakallah. Haddana waxaan arkaynaa bal waan jarjareynaa biitsadii si way kulushahay saaid. Saxanka saan markaa uga soo bixiyaba in la jarjaro ayay fiican tahay. Intay kulushahay in la jarjaro, haddii qabowdo ma fiicno. Marka waa kaasaa sidaas u jarjarayaa. Xabadiiba waxaan ka dhigi doonaa 8 cad insha Allah. Kadib tii kale ayaan haddana jarjarayaa. Mar walba aniga doolshada biitsada waxaan u isticmaalaa saxamadan, wax kalaba ma u gadan walaahi maasha Allah tabaarakallah. Waa kaasaa waan fujinayaa haddana si aan u ogaano gadaasheeda. Waxaan ka wadaa waa kaasaa biitsada hoosteeda ma jadiin maasha Allah gadaasheeda si u gaduudan tahay dahabi qurux badan. Tan waa tii qudaarta bis aan saaray. Tan kale waa tana chickenka ama doorada aan geliye digaaga. Tanna waan arkaynaa bal gadaasheeda siday noqotay iyadana kulushaha bahasha. Waa kaasaa wallahi maasha Allah tabaarakallah qurux badan ay noqotay isku eg maasha Allah tabaarakallah. Ilaahu caafimaad aan ku cunana sii yaa Rabbi. Intaa haysana sii anaga noo siyaadi, inta haysana Allah u siyaadiyo. Waa kaasaa asxaabteyda qaaliga gadaasheeda midi kale xataa markaas sii qaado saxanka oo dhan kuma dhegin, maysan gubanin, si qurux badan ayay noqotay maasha Allah. Saxankeedii ayaan ku celiyey sababtana waa inay qabowdo kadib la idinka ayaa idin tusay si aad u aragtaan. Marka maasha Allah tabaarakallah asxaabteyda qaaliga waa kaasaa biitsadii markii aan soo dhameeyey sidaas quruxda badan ay noqotay. Rajeynaa inaad ka heli doontaan. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina meel walba dunida ka joogtaan. Waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.